inaad tidhaahdo iyagaan rumaysanahay oo aad wadaadda meel ka daydayda iyo war kale iyo beri baa nebi maxamed qole heshiis la galay iyo war nebi maxamed kuwa heshiiska la galayay isaga ku hoos noolaayeen ahludimma bay ahaayeen heshiiska markay buriyeenna maxay ku buriyeen gabadh muslimaday qaawiyeen bes reer banu qaynuqaac saddex qabiilo yuhuudu nebigu heshiis la galay saddexdabana wuu la dagaalamo wuu ka saaray muxuu uga saaray gabadh muslimada bay suuqa soo gashay dahabka lagu iibiyo meelaha wax lagu hayo markaasay qaawiyeen nin muslim ag taagan baa kii dilay dabeetana waa la buriyey Soomaaliya 60kii laga bilaabay ilaa hadda dulmay wadaa waana isdulminaysaa kuwa midnimada ku qaylinayana uu dulmi badan ayaa waxaan ilaahay kitaabkiisa laga dhaxlay inay ku dhaqmayaan ayuha alahibba reer banu Israa'iil nimanka la yiraahdo nabiyullaahi Israa'iil ku aftirsada but diinta yuhuudda wali haystaan but waa islaameen but waa kristoomowme badna waa mulxidiin intaba way leeyihiin dadkii la odhan jiray reer banu Israa'iil kuwa hadda jooga qaar badan oo nabi Israa'iil ku aftirsan baa jooga oo waqti dambe diinta soo galay nimanka indha buluuga leh intooda badani asliyan maaha walidalik Israa'iil waa wadanka quray mamnuuctay DNA in dadka laga qaado waayo wadadaan isku meel ka imanin DNA in laga qaado lama ogola Israa'iil ka yuhuudnimo maaha waxa la isku hayaa marka koowaad ee waa inay mustacmar muxtal mustawtin yihiin waa inay dad dalal kale ka soo duulay oo dad muslima qabsaday oo dhulkoodii ku haysta oo ka qaaday ay yihiin inaad kuwan qirato markaa salaad idin ka dhow maalintii dhulkan laydinku leynayay ee aqaxdeen ee dulcad iyo xiriya qaxoontiga joogteen haddii inta qabaa'il kale ama dowlado kale ama yuhuud ama cid kale inta la soo raro burciya hargeysiya berberiya inta la mid la dejiyo oo aadna weli aad rafanayso dagaalamaysid ninka yidhaahda kuwa la soo raray meesha la dejiyay xaq bay u leeyihiin waa dowladda waan rumaysanay maxaad ka rumaysnaan lahayd adigu cid kale ha ka fikirin meel kalena ha ka raadin maanta qaxoontiga joogtay haddii lagu soo weydaarto burcaya hargeysiya berbero inta ama yuhuud la soo dejiyo ama dad kale la soo dejiyo ninka yidhaahdo waanu ictiraafay inay leeyihiin oo waayo qurumaha dowladda iyo carab baa sheegtay iyo war carabi ilaahay kitaabkiisa kuma dhaqanto kaagamana dhowaa عربي قال يا مسلم بويلاذي عربي منافق يا مسلم بويلاذي عربي وحول بويلاذي هذا هو قياس محات رميسنان لهيد دول عد مالتها جوكتي هذه تندد للدجيو ولبا الله يرى هذا هو اللور رميسي لك يرى هذا مركا وانا اعترافي ووحنا اعترافي in hargeysiya burcaqolada la soo dajiyay ay leeyihiin sida ka rumaysnaan lahayd un baa laga rumaysay ayuha alahibba siyaad barre oo wax dulminayay haddana wuxuu gartay dulmiga muxtalka ama mustacmarka ama mustawtinka inaanu aqbalin ولذلك بو يان سميد يا ساوث افريكا يا كواسي ولا دغالمي ولا دغالمي داد مدو ونن عادينتو كسو دولاي ودول دغاي oo mustacmar buu lahaa laga kiciyo waanu ku gar lahaa dad la dulminayo inuu yiraahdo yaan la dulminin oo ku gar lahaa adigu hadaad hiilin kari weyday waxba u qaban kari weyday inaad tidhaahdo iyagaan rumaysanahay oo aad wadaadda meel ka daydayda iyo war kale iyo beri baa nebi maxamed qole heshiis la galay iyo war
nabi maxamed kuwa heshiiska la gelayay isaga ku hoos noolaayeen ahlu dhimma bay ahaayeen heshiiska markay buriyeen maxay ku buriyeen gabadh muslimada ay qaawiyeen bas reer banu qaynuqaa saddex qabiilo yahuud uu nabigu heshiis la galay saddexdaba uu la dagaalamo uu ka saaray muxuu uga saaray gabadh muslimada bay suuqa soo gashay dahabka lagu iibiyo meelaha wax lagu hayo markaasay qaawiyeen nin muslim ah taagan baa kii dilay dabeetana waa la buriyay ahdigoodii waa la buriyay aw kullama aahadu ahdan nabadahu fariiqun minhum ahdi nimanka ka guntamay ilaa maalinta yimaadeen ma jiro balan ay galeen aanay burinina ma jiro kii nabi maxamedna way buriyeen raga daliil ka dhiganaya nabi maxamed baa la galay way buriyeen mushrikiin al-arab wala galay heshiis nabiyullaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam laakiin qabaa'ilkii heshiiska kula jiray markay ku soo duuleen wuu buriyay وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي أصلوا هشيسيدا وإن جنحوا للسلم هدي النبض وعدان أدنوا عبا إلى هيري سلام قد قال ومسكي جرى ملها هدي النبض وعدان أدنى النبض عبا إلى هيري كما أورانا ينتنيه هو النبض دوني وعدان أيها الأحبة أوقاف غزة كن يبغل يسجل مساجد بيدومية حدا كن يبغل يسجل مساجد يصدح كنيسات أيها الأحبة صدح بغل يشن يتبنقف الدعاء بيدلين لا بغل كن مسلمة يدك كلمة شدقنا يسوي أي وحيد دلين يا وحيد داوعين كديه وحي آخر ودرين 2 مليون qof ayay gaajaysiiyeen 91% oo dadkaasi ka midi alamn al-ghidaa'i ma jira bay leeyihiin waa gaaladu say sheegayso waa taqaariirta gaaladu ay ka qorayso gaala ka qaylinaysa adduunka wixii gaal joogay ayaa ka qaylinaya Ghazi maalinta idinku qaxdeen jaamacada ma idan lahayn Ghazi 19 jaamacadood bay lahayd maalinta idinku qaxdeen iskuulada lahaydeen oo dhambe 100 iskuul inay gaadheen ama 200 iskuul baa laga yaabaa 800 iskuul baa meesha ku yaalay wixii waa la tirtiray wala dumiyay albanki duwali ayaa wuxuu tilmaamayaa 18.5 billion waxa lagu qiimeeyay البنية التحتية ودوين كي واحد دمية نقرأ معها البنية التحتية باي تاسية أيها الأحبة مسلم كسيدا لو قليو هداد وحكا دعين كري ويدي هداد وقرقاري كري ويدي هداد وحبسين كري ويدي إنها ترى هذا كو قليه oo dhulkiisii haysta Soomaaliyeed dhulka muslimiinta laga soo qaaday dad baa wali furayaashoodii sita furii gurigiisa sita ninka furii gurigiisa sita inaad tiraahdo ka ku jiraan rumaysanahay inuu dhulka leeyahay aakhir xagee galiya adduunka wala iska noolaan karaa si xagaad u socotaa qof walba قفونا قف كلها كفكرين أذو محد إلهي اللي هرتجيسه أذو محد إلهي اللي هرتجيسه إلهي الله طابت كانوا قدام بدافع الويتيست الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. قال تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله إلهي وحليه نك إلهي كعب صده إلهي جدوى وبحية هدي له الظلميي والظلم ترسانيسو أما متهورها هذا أما متدبها هذا ده الظلم ترسانيسو ما مسلم كلا الظلم دابا لك قبح الظلم ترسانيسو بسحل كلا الرادية ده ظلمان طوات شاقانيسا إن لقو الظلميي عدة دونتها النقطة عدة كظلمين إسا صومالية عدة دونتها النقطة صوماليا ده عرب ده واحد دونتها ده هدي له الظلمية ما مسكين كلو مسلمة والظلم قاعد كويستا متكأذى كويسته أيات ظلم النمدي سينات كظلم ده أيات كفر حيسا فرحة موديسا ظالم كائنات لا تصار تابد واركتها إن ددوك كفايديسو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكوليه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ويقرن كو ظلم السمية أي منقلب ينقلبون ما شيء نقونيان آخره أيها الأحبة ظلم وحكم ترى إلهي سبحانه وتعالى وما للظالمين من نصر. إلهي قرآن كإن بدن بكت المامي الظالمين جيناني وحبلهي إنا يقول لهي آخر إلا عذابي إفك إن لو عذابي ولبا مركو وحكا ظلمين يا مسلم ياهي قال في إن لو بكادي يا بصورة قالها. أيها الأحبة عيدكم لها ضدها النقرن عيدكم لها وحكام قد هرات سنة عيدكم لها الظلم هيسكر عني لكن مدوح ظلمين أيانا نظلمين أياه آخر يادون تونا كفايد ميسي آخر يادون تونا فائدة كجهل ميسي سداويت آخر يادون تونا لقولي بان مايو ظلمي لكو هايستاسيكا لولا نقبع جرح Soomaaliya lixdankii laga bilaabay ilaa hadda dulmay wadaa waana isdulminaysaa kuwa midnimada ku qaylinayaana uu dulmi badan qaar ka mid oo badan laakiin inaad dulmi aad tirsanayso ka baxdo marnaba ma keenayo إن الظالم كوجود ضد مسلمين حتى اللينية ما هظلم وهو ردعي يا وقت يسيل إلا بي وفي هذه الساعة صعدة إن ضد الظلم ذا وهو حنقف كمسلم كاكتي سمر بصورة كاكاه ساسي درادد يا إلهي سبحانه وتعالى وحينات المامية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نبي محمد با إلهي كليه هو عنك ظلم السمائي نبي محمد مركز سيدا لقوله يساقى ظلما يساقى لدبي يساقى مكة وحكست له سميني يساقى مدركي ماشي كصحري لكن إلهي وحو شيغيا يبو دبتر سنيا هدنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا آيات ظرفي كسو دغتي waxa jira culimadu waxay yiraahdaan jawu nuzul iyo sabab nuzul
سبب النزول هو سبب مباشر كلا يدعو وحاسب آيات سودكتي جو النزول لا وحلا يدعو ظروف الوجري مركا آيات كان سودكيه شغل نبي محمد سيداسي لو ظلمين أيوه أي إلهي كجري أدو الظالمين أدو واحد ظلمين ما يسيب لي لكن ظالمين تهتاجر ألا لعنة الله على الظالمين بإله إليه إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إلهي القرآن كريم بدن بكت إمامية ظالم كي وحق السنية إن الظالمين في عذاب مقيم خذوا دوي دارات وقت ورقم السمية لكن واحد يدي شيء ياو هدي اللي ظلمية ظلم جسك كرقات لكن مسكين كلام صوب ظلمنا إياه وأن دولكيسي يددكيسي قوبتيسا نين كلا أو بوبتغا واعترافيا وظلمي هالكيود ميسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه